waxaan rabaa inaan idhaahdo laba munaasabadood waaye. Waa munaasabada koowaad ee aan u nimid shirkadda la soo siiyey yani horumarkan iyo karaamadan waa uga mahadcelinaynaa. taas marka difaaceeda waxaa looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay difaacdo. shirkadahan waa ka soo baxeen dadaalkoodii. haddii la dhihi jiray kontrabaan ay ku shaqeeyaan waa dhuntaan, argagixisay ay la shaqeeyaan, waxaas waa maqalnaa, waa beene. maanta tanay keeneen. nin dhuumanaa tan ma keeni lahayn. qof dhuumanaya ma keenayo abaalmarintan. waa garan kartiin golayaasha sharci dejinta oo annaga madaxda ka nahay wax badan way ka hadleen dhibaatada lagu sameeyay shirkadaha. waa dareemi kartiin, waana ogtiin. mana ka aamusayna waa ka sii hadli doonaa, waana la wada hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya inay xil iska saarto waajibaadkeeda ay qaadato. shirkadaha in lacagna laga qaato dhibaatadooda la xallin waayo sax maaha. maalin kasta waxaad tiraahdeen canshuur keena, lacag keena, deyn dhaaf aan ku jirnaa, lacag soo aruuriya keena dahdin. dhibkay soo sheegta inaad wax ka qaban waysiin sax maaha. waa inaad dhibkooda wax ka qabataan. mas-uuliyadda adinkaa saaran. dowladnimo wax ku hadli kara waa adinka. burburkii jiray dadka ummadda Soomaaliyeed u soo shaqeeyay ayaga ay ahaayeen. waxaan leenahay anigu warkayga ma sii badinaayo, aadaan ugu faraxsanahay karaamada iyo sharafta aad maanta u keenteen ummadda Soomaaliyeed. aadaan idinkaga mahadcelinaynaa. ku sii jira hal idin xanta haddii la rabo, laakiin runtaa meel imaane.